Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo golaha shacabka horgeeyay xubnaha cusub iyo qorshaha xukuumadda ayaa xusay in barnaamijka xukuumadda ay saldhig u tahay arrimaha hortebinta u leh dalka ay ugu horeyso qabsoomida doorashooyinka, adkeynta amniga, horumarinta cadaaladda, dowlad wanaagga, kordhinta adeegyada aasaasiga ee bulshada. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in xukuumadda si wadajir ah ula shaqeynayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed sugidda amniga xilliga doorashooyinka iyadoo laga ambaqaadayo go'aanadii ka soo baxay shirkii Samareeb iyo midkii ka dambeeyay ee golaha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen Muqdisho 17 bishii September 2020 laguna qeexay qaabka doorashooyinka, ergooyinka deegaanada doorashada, qoondada haweenka iyo in ay doorashooyinku ay ku dhacaan waqtigooda. Xukuumadda ayaa dardar gelinaysa dadaalada dhamaystirka dib u eegista qorshaha amniga iyo xilliga muhiimka ah, waxaana shaki ku jirin in fulinta qorshaha uu siin doono shacabka, hay'adaha dowladda iyo ciidamada amnigu fursad ay si wadajir ah u sugayaan xasiloonida iyo nabadda dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa uga mahad celiyay golaha shacabka ansixinta xukuumadda iyo barnaamijka si ay u gutaan shaqooyinka adag ee lagu sugayo, asagoo tilmaamay in xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah sii doonto wax ka qabashada xadgudubyada ka dhanka ah qaybaha bulshada ee u nugul.